maahan aabahayga saxda Ibrahim aabahayga saxda aniga wuu geeriyooday maxamed qadar cabdullaahi ayaa la yidhaahdaa soo markaa fanaanka caanka ah soomaalida sida weyn ay u garanayaan ee Qadar Keyo ayaa mar kale taariikh la yaab leh soo dhigay bartiisa Facebooka asagoo sheegay in 25 sano ku dhowaad uu hooyadii iyo waliba walaalkii uu dib ula midoobay Qadar oo horaantii 2019 waraysi uu bixiyay uu ku sheegay in uu ahay nin madiya isla markaasina hooyadii ay turtay isla markaasina uu meel ku sheegin haatan ayaa arintani soo shaac bixiyay isla markaasina u ballan qaaday ummadda Soomaaliyeed in goordhow uu soo bixi doono documentary uu kaga hadlayo arintaasi inuu ka hadlay yani wixii markaas ku soo dhacay ama ha noqdo dhan family ah ama ha noqdo dhan shakhsiyan asaga ah يعني markaas inuu ka hadlo anigoo ku bilaabayo yani dhankayga markaan for reality aan u hadlo oo dhan family ay tahay kulleeytaba aniga hadda dadka intay wada yaqaanin magacayga kaliya iyo muuqayga yaqaanin balse ma yaqaanin like nolosheeda iyo lifekayga saxda ah صح inta badan kagama aanan hadlin yani meelaha social media ama yani kagama aanan hadlin tan marka waxay ku tusaysaa yani qof walba inuu lifekiisa saxda ah ka hadlo comfortable na u dareemo si uu u noqdo yani qof marar badan hadaladiisa la qaadan karo oo xigmad leh oo farxad dareemo oo la isku kadego nacam ahaantii aniga aysan soo garin hooyo lama aanan soo barbaarin laakiin waxaan la soo barbaaray ayeeyna markuu qofka ayay korisay waa ogtahay waa qof badraan oo la ilaaliyo inta badan maxaa ayeeti la dooraya balse noloshu markay ay ku tahay aa arkaysa haddana yani garab aadan haysanin hooyo aadan lahaynin yani sida aad dareemayso waa arki kartaa aniga laakiin 100% waxaan haystay ayeeyo ama hooyo hadda aan adduunka ugu jeclahay ayadana noloshoo dhan waxay tahay macaanteeda iyo quruxdeeda i bartay balse sometimes markii oo yani aad aragtid nin dhalinyaro ah oo saaxiibkaaga kala camal ee yani hooyadiisa dhabta ah haysta waxaad arkaysaa yani waxyaabo adiga ku taabanaya oo markaas booska banaan oo isleedahay waa maxay ku dhici kartaa adigoo yar hooyadaada maadaama aanan arkin ayeeyana aan la soo kortay kadibna waxaad ku sii ilaawdaa haddana intay ayeey ku qabatay inay booska hooyo waxba aysan yani ka dhinayn oo aad fuul tahay dareemaysid aniga run ahaantii waxaan ahaa nin aad u da'yar oo haddana maskaxdiisa la tashtay inta badan aabahayga hadda Qadar Ibrahim magaceygana anaysta ee dadka ugu wacaan Qadar Ibrahim maahan aabahayga saxda Ibrahim aabahayga saxda aniga wuu geeriyooday maxamed qadar cabdullaahi ayaa la yidhaahdaa soo markaa kadib waxaan isku dayay inaan yani aniga dhan si aan ugu baxo lifekii aan ku jiray in yani aabbala'aan aan ahay aabihii oo iga geeriyooday hooyana aanan haysanin yani awoowi iyo ayeey aan la noolahay oo yani muxuu ayeetii markii somehow aad dareemo yani inay saaxiibadeeda ama dhalinyarada kale waalidiintooda ay u nool yihiin oo saxda ay haystaan ama garab walaalnimo ay haystaan madiyana ahay qofnii lama aan dhalin aniga walaalkiina balse waxaan ku soo barbaaray eedayaal aad u macaan adeeryaal aad u macaan hooyo aad u macaan ayeeyay awoowo aad u macaan oo awoowo yani naxariista ay siiyeen iyo jaceylka ay siiyeen maanta aan inta ku soo koobi karin balse tan waxaan hadda u sheegay waxay tahay documentary saxda inaan duubeyna hadda yani oo dhalinyarada u gudbinayo somehow in yani maskaxdaada aad tusisid inaad runta ka hadli kartid yani waxyaabihii noloshan ku soo marana aad dadka u gudbin karto u sheegi kartid xaqiiqatan waxaan ku nooleen nolol iska normally ah loona ahayn hayna ahayn waxaan degnayn guri iska reer iska danyara ahaan guri iska danyara degnayn balse wixii ka dambeeyay muddo badan kadib adeeryaal iyo awoowayaal kadib ay baxeen dhoofeen waxaa dhacday in familkii dhaqaalahoodii noloshoodii quruxdoodii intaba ay sii korto kadibna anigoo dhalinyaro ah haddana ayeey iyo awoow aan haysto marnaba hooyo yani aan lay dareensiinin oo dhulka laga dhowraya adeeryaal aad u macaan sidaan hore idinku sheegay iyo eedayaal aad u macaan iyo aabbo oo awoow oo hadda Qadar Ibrahim magacii aabihii aan booska ka bixiyo aab maadaama ay adeeryaal iyo awoowayaal aabba dhahayeen aniga afkayga sidaas uu la qabsaday hooyana sidoo kale hadda hooyada aan haysto adduunka hooyo ka macaan inay jirto uma malayn doono hooyo Faa Cabdi Jimcaale halkaan ka salaamayaa ayeeydeen iyo in ayadina ay tustay jacayl hooyanimo aad u macaan
marka si aan yani maskaxdeeda ugu baxday inaan maanta yani aan hooyo la'aanna ahayn aabba la'aanna aanan ahayn. aabbahay wuxuu ahay curudka guriga yani markuu muddo kadib geeriyooday yani dhallinyaraan ahaa aad u da'yar iskuul dhiganaya dugsin dhiganaya maskaxdeeda si loo maaweeliyo yani waxaas looga bixiyo darteed wax badan oo maanta aan inta ku soo koobi karin oo aan is dhihi kara haddii aan dib u noqdo dhallinyarada qaar xitaa waxbaan dheerahay nolosha aan haysto ayay igu soo barbaariyeen aadna u qurux badan. aabba Ibraahim Cumar oo awowahayga ah hadda waxaan ka salaamayaa halkan hooyo Faa Cabdi Jimcaale labadooduba waxaan leeyahay waxaa tihiin dadka adduunka ugu macaan haddii loo fiiriyo dhankayga aniga. nin walbo ayayadiis ama awowihiis ama hooyadiis ama aabbihiis wuu jecel yahay balse aniga yani waxaan ka hadlay maanta aan u duubayo maskaxdeeda yani wixii uu ku taagnaay aan ka hadlay maanta. shalay sidaan ahay iyo maanta sidaan ahay labay kala tahay maadaama nolol qurux badan aan ku soo koray. somehow-na markii aan yani arko dhalinyaro hooyo aabbe haysto ama ciidahoo kale markii la dabaaldegay ee la socdaan guilty waan dareemi jiray balse waxaan ugu bixi jiray dib u xasuusan jiray macaanidii badnaa ee laysoo siiyey maxaa kaa maqnaay aad tabi kartaa maanta nothing waxaan tabi kara ma jirin. waxaan seriouska ugu hadlayana waxay tahay programkan dhana ah program maskaxda wixii ku jiro iyo sida aan ugu baxday kadib markii aan yani soo koray xoogaa soo barbaaray reerkiina dakhli fiican oo soo galay yani nolosha hore ay ku jireen ay kasii ballaadhay tay ku jiraan maanta qurux badan tahay oo anigana yani aan isku dayay in aan wax yani aan ku soo kordhin karo bulshada ama magacayga aan u saraysiin karo oo heerkan aan ku soo gaaro maanta dadaalkeeda. waxaan hadda dib ugu laabanayna waxay tahay mar walba waa inaad reebtaa yani xaqiiqadaada dhabta horta hore waan dareemi karaa marka aad leedahay hooyan tabaya oo semberi hooyada iyo aabaha biological ku dhalay si walba aysan ku korin oo jacayl walba fara badan lagu tuso waxa maqan boos dulayla aad leedahay wadnahaaga ah dulaylkaas aad mar walba raadinaysaa inaad buuxiso adigoo xataa rabinin waxa laga yaabaa aadan rabin inaad ku bedesho ayay awoow midna laakiin inaad rab lahayd noloshaada inay qayb ka qaataan waan dareemi karaa xanuunkaas. waxaan rabaa inaad la qaybsatid walaalahana daawanaya maxay ahayd markay kugu soo noqoto murugaadaasaytay maxay kugu reebi jirtay adigu waad ka hadashay mar raba dib inaan kugu celiyo laakiin waxaan rabaa inaad taabato mararka aad dareento xaaladaha aad ku sugnayd iyo waxa markaas aad isku maaweelin jirtay. waa maasan tahay Nasra yani mararka aan dareemo xaaladaha city waaban ku sheegayba waxaan yani sameyn jiray inaan yani horta markaan arko yani anigu sida hore idinku sheegay madi aan ay yani arko walaal kale la socdo ee haysta farxad siinaya aniguna garabkayga walaal ila dhashay iyo hooyayga aabbo uusan u joogin waalidiintana ay geeriyoodeen aan la noolahay waalidiin kasii macaan badan maanta adduunyada ii jooga Allah ii dhaafo balse waxaan giltiga aan dareemi jiro maanta usoo gudbinayo waxay tahay yani xanuun inay boos iga banaan marka aan isku dayay inaan kaga baxano waxaan kaga bixi jiray si easy ah markaan ama ilmeeyo ama is uqdadeeyo ama yani maskaxdeeda ay gasho haddii maanta sidaas ay heli lahayd ama adduunkan ay ku joogi lahayd iyo maanta sida aa haysatid maxay ku kala duwan yihiin farqiga waxbana waayo waxay ku kala duwan yihiin ma jiraan waalidiin aad u macaan oo Ilaahay siiyay oo booski ii joogay oo yani exactly sidii oo kale ii taagan ku dhahay iyo eedooyin iyo adeeryaal oo maskaxdeedaba ka bixinay inaan yani guilt dareemo balse in yar markaan aniga maskaxdeeda fikiro waxaan gelin jiray haddii yani nin duurka iska socda aad ahaan lahayd ama waalid uusan haysanin markaas laga yaabay inaad tiraahdo Allah maxay iga maqan yihiin aad ciishootid balse waxaad ku ciishoonin maanta waxay tahay ama aadan dareemaynin in yani still jacaylkii beri aad jacaylkii shalay aad rabtay maanta in aad haysatid berina in aan anigu sii sameeyo family nololna sameeyo ma sha Allah ilaahayna family qurux badan wuu siiyay magacna maanta iyo iguma yaro sidaan isleeyahay yani bulshada dhaxdooda anaga qareen inay soo kugu yareen marka waxyaabaha marka dhabta inay dhalinyarada ka hadlaan waxba is celinin wax beenana waligaaga ha sheegin sababtoo ah noloshan aad arkaysid waa yani sida qof doqon ah noloshan aad arkaysid waa sidii qof doqon ah oo maanta oo dhan qofka doqonka markaad yani mar walba inaad ka awood badan tahay uu dareemo
halkii mar uu asaga kaa awood badnaado ama dhulkaas uu kula dhaco uu kaa awood badnaanaya. Nolosha sideeda badan waa doqon, balse dulqaad ayay u baahan tahay, ma garatay? noloshu waa doqon, waxay u baahan tahay dulqaad. waxaana aad ugu mahadcelinayaa dhammaan kaamiramanka, sidoo kale adiga, dhammaan bulshada ku xiran tiimkan TV-ga ama channelka iyo meel walba ay joogaan shacabkana aad baan u salaamayaa. waxaan tan ugu hadlayana ma ahan wax hadda i haysta ama aan ku jiro, waan soo dhaafay, laakiin wax reality in lagaaga daydo oo diyaar dadka la qaybsato. yes. yacni dadka maanta maraya inaysan dareemin inay mataqaanaa in kala yihiin in noloshan hore loo soo maray, in mataqaanaa murug ay jirto, in mataqaanaa way looga baxana ay leedahay. anoo kula kaftamaya jeclayna inaan murug ku dareensiiyo. no problem. waxaan rabaa heeska walaal maxaad dareentaa? wallaahi dadka inta badan waxay i weydiiyaan ooyinta ma jiliin baa mase yacni waa dhab, balse ani waxaan u sheegaya waxay tahay fiideoga inta ugu dambeysa ee ilmada iga socota ama ilmada iga imaanaysa si reality iyo fiiri xitaa qof jiliin jilaya xitaa ilaa intaas ma keeni karo. waxa iga keenayna waxay tahay heesta walaal maanta aan u jilay ama u sameynayay, yacni in aan anigu dareemayay walaalka sida uu u macaan yahay maanta haddaan haysan lahaa. waxaan la dardaarmayay oo haddana targetka uu ii saarnaa qofka walaal haysta ee walaalkiis xumeynaya maanta. qofka walaalkiis u joogo adduunyada ugu nool oo haddana xumeynaya, laga yaabee ama ay dhici karto walaale in muddo ah wax yar dhexdooda ka dhacay isku nacay ama kala tegay. aniguna inaan isku dayay yacni inaan tuso maanta inaan isku keeno walaalnimaduna ay aad u macaan tahay. maanta ani haddaan walaal yacni oo ila dhasho isku hooyo isku aabba aan nahay aan haysan lahaa, yacni sida aan hadda dareemay si kasii badanaa dareemaya markaan dhabta ka hadlayno. laakiin adigoo haysatid ka waran haddii yacni aad dhaqaaleysan weyso ka faa'iideysan weyso. marka ani taas waxaan hadlayay bulshada, waxaan u gudbiyay fariin yacni oo ah xaggayga ka socota ama bulshada qaybaheeda kala mid ah ay ka